munaasabadan uu xilka ku wareejinayay xogayihii hore ee joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed Isaaq Aadan kaasi uu ku wareejiyay xogayaha joogtada cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Danjire Maxamed Cali Nuur ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda, wasiiru dowlaha wasaaradda, qaar ka mid ah shaqaalaha iyo marti sharaf kale. xogayihii hore ee joogtada wasaaradda arrimaha dibadda oo xilka wareejiyay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay. inta kadib waxaan rabaa inaan si mahad gaar u celiyo agaasimayaasha wasaaradda arrimaha dibadda oo runtii mas'uuliyadaas ila qaybsaday oo ila qaaday oo igala shaqeeyay hawshii la idmay saacadaas. runtii aadan maxaa idinkaga mahad celinaa geesinimadii iyo garab istaagaad ii samayseen inta hawsha aan hayay, wanaagga iyo ixtiraam intii aan ku guulaysanay idinkaa u sabab ahaa. aadan idinkaga mahad celinaa. waxaan kaloo rabaa inaan si gaara uga mahad celiyo ciidanka ilaalada wasaaradda iyo madaxdooda oo runtii aad noola shaqeeyey, amnigana sidoo wax ka bedelay markaan maxaado meesha aan imid. xogayaha joogtada cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Danjire Maxamed Cali Nuur ayaa sheegay in shaqada uu halkeeda ka sii wadi doono. ilaahayna ay waafajiyo xaqa iyo hawsha la ii diray sida la iigu diray inaan uga soo baxo. waqtiga wuu gaaban yahay, warbixintii dheereedna waan dhagaysanay agaasimihii hore. waxaan kaliya inta aan ku wareejinin wasiirka oo na siin doono tacliimaadka iyo gaarlis na siin doona. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa kula dardaarmay xogayaha joogtada cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda inuu dardar geliyo howlaha shaqada ee horyaala. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.